waad arkaysaa runtii background-kayga qaabka uu noqday iyo qaabka runtii aynu u qurxinay waxaan rajeynayaa in kii markii hore aynu arkanay runtii aynu sameynay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا بدعوضيال كسر هذا قناة إسلامي تكنولوجي مقعي وعب سلام أبو بكر هل قد نجد دعوانا سنة وقناة إسلامي تكنولوجي إن شاء الله تعالى مقال كمان توحنا كل هذا دونا ميت كمية مقالة دي جرافيك ديزاين كا وأن هراء بلان قاضي رنانتي كانت مدة سؤالها لويدي وأن رنانتي كوجد تشري ولا هذا جوابه يحيى بلان قاضي رنانتي إن أسوق لي قناة كينا إن شاء الله تعالى ما توحنا كل هذا دونا قاب خلاص مايو sticker-ka Ramadan Kareem oo dadka muslimiinta la ugu hambaliyeeyo xurashada bisha barakeysan ee Ramadan taasoo aan rajeynay insha Allah ta'ala inay maalinta bariya insha Allah ta'ala inay soo gaadho insha Allah ta'ala marka insha Allah ta'ala waxaan isticmaali doonaa application loo yaqaano Pixel Lab insha Allah ta'ala marka application ka mid marka ugu horeysa furi doonaa kadib application ka markaan furno interface-kiisa qaabkana hore inoogu soo baxaya laakiin si aynu aragno waxyaabo aynu rabnay inaynu sameeyno oo aan hore u sameeyay halkan ayaan soo furi doonaa marka ugu horeysa halkan ay ku qoran tahay projects hore ayaan u sameeyay oo u save gareystay kadib waan soo furay runtii maanta insha Allah ta'ala waxaan sameyn doonaa sticker kan oo kale insha Allah ta'ala ayaan sameyn doonaa qaabkan u design gareysan iyadoo loo design gareeyo boqolaal qaab oo kala duwan laakiin aniga qaabkan ayaa dookhayga noqday adiguna qaabka doonto ayaad u design gareyn doontaa laakiin marka ugu horeysa waxaan rabaa inaan ku tuso meelaha aad kala soo degi karto runtii materialkan inta aynaan casharka bilaabin kadibna casharka aynu bilaabi doonaa insha Allah ta'ala sida awgeed marka ugu horeysa waxaan geli doonaa Chrome browserka ama Google-ka meesha ka booqato kadibna halkan search bar-tiga ayaan insha Allah ta'ala waxaan ku qori doonaa insha Allah ta'ala sayna mid kamid ah aynu soo saarno qoraalka carabiga oo kala tusaalaha saynu soo saarno waxaan ku qori doonaa Ramadan Kareem Arabic font ayaan ku qori doonaa kadibna Ramadan Kareem markaan ku qorno kadibna halkan images-ka ku dhufan doonaa images-ka markaan ku dhufano qoraaladan inuu la soo degaynaa runtii qoraalkaas oo kala tusaalahan ku soo darsan karnaa oo la soo degi karnaa qoraalkan oo kala tusaalahan la soo degi karnaa qoraalka nooca doonto tusaalahan kan oo kala la soo degi kartaa marka aad rabto inaad la soo degto waxa sameynaysaa marka sawirka sidan oo kala aad u dul tagto sawirka marka la soo degayso saas bad gacantaada wax ugu cadaadin doontaa insha Allah halkan ayaad gacantaada ku cadaadin doontaa kadib markaas soo kala gacantaada ku cadaadiso qoraalkan ayaa soo bixi doona markaad xoogaa ku yara hayso kadibna halkan download image ay ku qoran tahay ku dhufan doontaa kadibna gallery ayuu ku tagi doonaa shayga labaad ee materialkan isticmaalnay runtii waxa kamid ah runtii laambadaha waaweyn xagga sare ka soo laadlaada oo loo yaqaano Islamic lamp ayaad ku qori doontaa iyagana waa kuwan haddii aad rabto iyagana sidoo kale sawirka ayaa taaban adigoo aad rabto kadib marka sawirka taabato kadibna halkan sawirka bartankiisa ayaad waxoogaa gacanta ugu yarahayni marka saa ugu hayso qoraalkan ku soo bixi doona isagana qaabkaas oo kale ula degi kartaa ama u download kareysan kartaa kadib waxaan rajeynayaa material fiican insha Allah ta'ala inaad heli doonto sidoo kale bisha ayaad la degi doontaa qaabkan bay indho la degi doontaa insha Allah ta'ala waxaan rajeynayaa inaad fahantay runtii qaabka loola soo degayo materialka sidoo kale materialka anu sida gaarka anu isticmaalay insha Allah ta'ala waxaan soo dhigi doonaa barta aan ku leenahay Telegram-ka Islamic Technology ayaan soo dhigi doonaa shape-ka runtii anigu aan sameeyay iyo insha Allah ta'ala waxaan soo dhigi doonaa design-ka anigu aan sameeyay insha Allah ta'ala wax kale soo dhigi doonaa iyo materialka aan isticmaalay insha Allah ta'ala marka waxaan ku noqon doonaa design-keeni insha Allah kadib waxaan ku noqonay runtii Pixel Lab-kii sidoo kale waxaan furanay runtii canvas cusub si aynu u sameyno runtii design-kii oo kale marka ugu horeysa waxaanu iska delete gareyn doonaa tagskan sida caadada inoo ahayd delete ayaynu taaban doonaa halka weeyaan meesha laga delete gareeyo delete kala taabtaa kadibna okay baynu siinaynaa intaa kadib waxa kaloon sameyn doonaa insha Allah ta'ala waxaan sameyn doonaa waxaan marka hore halkan shaybiska aynu ku soo dari doonaa sidoo kale waxaan ku soo dari doonaa sawiraantii waxyaabihii la midka ahaa marka ugu horeysa waxaan laba shay baynu isticmaali doonaa halkan aynu tagi doonaa calaamada wadarta kadibna halkan ay ku qoran tahay shapes baynu ku dhufan doonaa kadibna insha Allah ta'ala shape-kan hadda ma rabno halkan aynu ku dhufan doonaa kadibna waxaan ku dhufan doonaa shape-kaas aanu qaadanaa insha Allah ka markaan ku dhufano kadibna halkan aynu text siinaynaa aanu ku dhufanaynaa kadibna xoogaa baynu sidaas oo kale u yaraynaynaa kadibna saas baynu xoogaa u yara jiidaya haddana
xoogaa markaa saasoo kale aan u yara jiido weliba yara weyneeyo insha allah qaabkaasoo kale markaan ka dhigo kadibna weliba waxaan isku dayi doonaa halkaas bartankaan ku dhufan doonaa calaamadda bartankaa shaybiska tiyo weliba ii highlight gareysaya shaybku aan ii select gareysan yahay kadibna xaggan aan u socon doonaa kadibna halkan ay ku qoran tahay color ayaan ku dhufan doonaa color kale ayaan insha allahu tacaala halkaasaan soo furay markaas colorkana ii soo baxay marka colorkan isaga ma rabo waxaan samayn doonaa halkan aan u socon doonaa colorka bluega ayaan tusaale ahaan dooranaya aniga dookhayga adiga nooca doonta ayaa dooran kartaa kadibna haddana halkan shaybiskan mar kale ku noqon doonaa shaybkii labaad aynu insha allahu tacaala soo dooran doonaa ee beydamkii halkan aynu ku dhufan doonaa shaybiska kadibna shaybkan aynu qaadan doonaa sidii oo kale aynu isagana insha allahu tacaala isticmaali doonaa saas baynu xoogaa u yareyn doonaa waanan dhuubi doonaa okay shaybkaasna isagana insha allahu tacaala qaabkaasoo kale aynu ka dhigi doonaa labada shayb baan si fiican isku leegeysiin doonaa eriyada kadibna shaybkan waxaan ka dhigi doonaa isagana sidoo kale colorkii oo kale aan isagana ka dhigi doonaa waxaan ka dhigi doonaa blue si aan loo kala fahmin labada shayb inay isku yaalaan iyan kale qaabkaasoo kale markaan usoo diyaariyey kadib waxaan soo dhigi doonaa halkan waxaan soo dhigi doonaa Ramadaan Kariim halkana qoraalkii baan ku qori doonaa Ramadaan Kariim af Soomaaliya halkana kiyo Carabiya soo dhigi doonaa farta Carabiga qaabka loo photoshopayo waynu aragnay qaabka loo soo download gareystana hadda ayaan ka soo hadlay qaabka tiyo sawir loo soo download gareysto farta Carabiga qaabka loo photoshopaysta hadii aad rabto insha Allah taala waxaad booqan doontaa playlistiga kanaalkeena YouTube-ka waxaad ka heli doontaa 4 cashir oo barnaamijka loo yaqaano ana muxtaraf al-khat insha Allah وبرنامجكاas إن شاء الله تعالى ka faa'iideysan doontaa waana 4 cashir oo kaliya farta Carabiga qaabka loo photoshopeeyana hadii aad jeceshahay insha Allah تعالى kaas aad ka heli doontaa marka ugu horeyso farta Carabiga aynu ku soo daraynaa halkaas aynu ku dhufan doonaa calaamadda wadarta kadibna halkan aynu ku dhufan doonaa ay ku qoran tahay from gallery kadibna waxa inoo runaantii aan galleryga aan ka soo doortay sawirkan ayaan ka soo doortay runaantii oo Google-ka kala soo degay ama teleefankaaga ayaad ku photoshopayn kartaa kadibna halkan tigta ayaan ku dhufan doonaa si aan uga sii socdo sawirkan waxaan rabaa inaan background-kan cad ka masaxo oo aan madowgaas oo kaliya la hado sida awgeed halkan calaamadda shaybiska ee bartanka halkaas waa inaan ku dhuftaa sidoo kale waa inay halkan ay highlight gareysan tahay shay muxuu ahaayay sawirkan aan rabo inaan background ka qaado kadibna xaggan ayaan u socon doonaa icon-adan kadibna halka ay ku qoran tahay color erase ayaan ku dhufan doonaa insha Allah markaan soo furaba cadaanka ayaan masaxmi doonaa halkaas aan soo furi doonaa u fiirso cadaankii baa si dhib yar loo waayay markaas sida awgeed halkaas aan ku dhufan doonaa insha Allah halkaas aan ku dhufan doonaa kadibna waliba colorkaygana waxaan ka dhigi doonaa cadaan ayaan ka dhigi doonaa colorkana halkan ma dhakan ma soconaya colorka halkaas aan ku dhufanaya kadibna aan soo furaya halkan cadaan baan rabaa inaan ka dhigo kadibna markaan qaabka cadaanka uga dhigay kadibna waan yareynayaa markaan xoogaa saasoo kale aan u yareeyo halkaasaan runaantii dhigayaa Ramadaan Kariim qaabka u photoshobaysan qaabkaasna u qurux badan kadibna qoraalkii baan soo qaadanayaa haddana halkan aan ku dhufan doonaa calaamadda wadarta qoraalka loo tagas caadi ah oo af Soomaaliya ayaan ku dhufan doonaa halka tagas ay ku qoran tahay ku dhufan doonaa kadibna tagas ka soo baxay ayaan 2 goor saa u gujin doonaa kadib marka 2 goor dhagdhag siiso waxaad ka masixi doontaa waxaad ku qori doonaa Ramadaan Kariim anigoo Ramadaanta arta ugu horeysa ka dhigi doona ama raada ugu horeysa capital keedana aan mar kale capital ka dhigi doono Kariim sasan u qori doonaa markaan qaabkaas oo kale u qoro kadibna halkan aan keeni doonaa xoogaa baan saa u yar weyneynayaa kadibna halka eeda ayaan ku dhufan doonaa halkaas markaan ku dhufto kadibna halkan ayaan u socon doonaa waa tiyo ay fartan iyo highlight gareysan tahay ama select gareysan tahay kolba sida u taqaano select gareysan tahay waxaan ka wadaa yacni hareerahaas ay waxaas ku leedahay marka taabato isbedel ayaa runaantii ku dhacaya kadibna halka waxaan ku dhufan doonaa ay ku qoran tahay AB ay ku qoran tahay kadibna hoos ayaan insha Allah tacaala u socon doonaa xoogaa weliba hoos baan u soconayaa ilaa aan gaaro halka ay ku qoran tahay Grand Hotel Regular fartaas ayaan dooran doonaa aniga fartaas ayaa dookhayga farta doonto ayaad ku qori kartaa adiga aniga fartaas ayaa aad ila qurux badnaatay waana taan wax ku dhisan kareeyay Ramadaan Kariim qaabkaas aan jeclahay inaan ugu dabaaldego dadka muslimiintaana aan insha Allah tacaala aan ugu hambaliyeeyo curashadeeda intaa kadib waxaan samayn doonaa waxaan ku soo dari doonaa laambadii halkan yaalay sidoo kale halkan waxaan soo dhigi doonaa bishii halkan waxaan soo dhigi doonaa loogada kanaalkeena insha Allah oo macnaheedu tahay in kanaalka iyo runaantii kanaalkeenu uu dadka runaantii u hambaliyeynayo kadibna waxaan ku dhufan doonaa halka calaamadda wadarta ayaan ku dhufan doonaa si aan ugu soo daro
bal aan ugu soo daro hilaalkii ama bishii kadibna halkan markaan ku dhufto kadibna halkan from gallery ay ku qorantaa ku dhufan doonaa kadibna saad aragtaan runtii waxaan kusoo daray hilaalkan ama bishaasaan kusoo daray halkan qoraal aan loo baahnayn ayaa yaala insha Allah tacaala waan xalin doonaa qoraalka hadda qayb baan ka jari doonaa qaybta kalena marka aan gudaha geeyo insha Allah tacaala ayaan ka masixi doonaa marka ugu horeysa intaan halkaa ku dhufan oo aanan tigarayn hareeraha ayaa riixi karaa tusaale ahaan sidaas oo kale u soo yareyn karaa halka intaan qabsado halkan saasaan u yareyn karaa hareeraha qoraalka intaas imika intaasun baa inoo geli doonta gudaha kadibna waan tigaraynaya halkaas ku dhufanaya u fiirso kadibna qoraalkii qaybtaas ka go'day sawirkii aan soo gelinay waxaan rabaa inaan kalarkan madow marka ugu horeysa masaxo kadibna aan iska masaxo xarfahaasi intaba insha Allah tacaala waan awoodaa sida awgeed waxaan samayn doonaa halkaa shapeskii bartanka ayaan ku dhufanaya halkaas hoosta tiyo waliba kan ii highlight gareysan yahay kadibna halkan aan u socon doonaa halkay ku qoran tahay color erase ayaan ku dhufan doonaa halkaas kadibna halkan ayaan soo furi doonaa waxyaabaha cad ayuu masaxaa qaybo yar yar oo meelahaas ayuu masaxay si fiican kuuguma muuqdo waxaan kale cadaan maaha orange buu yara xigaa kadibna madowgaan rabnaa inaan masaxno qalinka yar ayaan soo qaadan doonaa qalinkaas qalinka markaan ku dhufano kadibna labada dhibcood two dots ayuu wataa qalinku haddaad u fiirsato banaanka aan u saaro labada dhibcood waxaan taaban doonaa dhibicda yar ayaan taabsiin doonaa qaybta madow ayaan ku dhufan doonaa markaan madowga ku dhufano kadibna halkaa tigta ayaynu ku dhufan doonaa madowga ayaa masaxmi doonaa imika sida kuu muuqata madowga ayaa masaxmay xoogaa hareeraha waxaa kaga jira xoogaa yaro madow ah si aynu uga masaxno hoos ayaynu u soconaynaa kadibna halkan ayaynu xoogaa xagga midigta ayaynu u jiidi doonaa u fiirso imika wataa nadiif noqotay cadaan kadibna halkaas ayaan ku dhufan doonaa halkaas tigta waan tigarayn hadda kadib waxaan rabaa inaan masaxo nuunka ama halkaas run ahaantii xarafkaas meesha soo dhex gala inaan ka masaxo run ahaantii halkan ay ku qoran tahay color erase ama eraser halkay ku qoran tahay cafwan eraser halkay ku qoran tahay ayaad ku dhufan doontaa oo iyadna ku xigta kadibna qaybtee baa soo jeeday qaybta nuunka kadibna halkan run ahaantii waxa weeyaan meesha run ahaantii laga yara weynaysto meesha laga masaxayo tusaale ahaan imika haddaan halkan masaxis idhaahdo farta yar way yaraanaysaa gacantaad ku masaxaysaa kadibna si aan u yara weynayo halkaas ku dhufan doonaa imika way weynaatay walibana shayga masaxaya waa dhotka bartaa yaala si aynu qayb dheer ugu samaysano halkan hoostaynu riixi karnaa saa markaan u riixo waxaa kasoo baxay qayb kale oo dheer halkaa dambe maan qabsanayaa si aan u masixi karo shay halkaas maan qabsanaya halkaas u fiirso imika anu halkaasaan hayaa halkaas markaan wax masaxayo kadibna waxaan tirtiraynaa qaybta aynaan rabin ayaynu tirtiraynaa okay si fiican baynu u tirtirnay kadibna waan iska tigaraynaa waayo madowgan hore aynu usoo masaxnay oo markaynu tigarayno arki mayno halkaasaan ku dhufanayaa inaad si fiican ii fahantay insha Allah tacaala baan rajeynayaa yacni cashar baa run ahaantii ku dhex jiray keliya ma samaynana uun waxa loo yaqaano stickerkan oo keliya ma samaynano laakiin waxaa ku dhex jira cashar qaabka waxaad u masixi lahayd run ahaantii haddaad practical garayso run ahaantii way ku fududaan doontaa waxaan rajeynayaa inaad samayn doonto insha Allah tacaala kadibna hilaalkan baynu xoogaa yaraynaynaa ama bishan baynu xoogaa yaraynaynaa dayaxan saasaynu xoogaa markaynu u yarayno halkaas baynu dhiganaynaa kadibna waxaynu kusoo dari doonaa sidoo kale laambadihii baynu kusoo dari doonaa eeriyadan baynu black ka dhigi doonaa marka halkaa calaamadda wadartaan ku dhufan doonaa si aan laambadihi aan ugu soo daro kadibna halkan from gallery ay ku qorantaan ku dhufan doonaa sidaad arkaysa run ahaantii waxaan kusoo daray laambadii oo background leh kadibna waan iska tigaraynayaa si aan gudaha usii galo kadibna kalarkan waynu ka masixi jirnay qaabka looga masaxo waynu soo aragnay halkan aynu u socon doonaa color erase baynu ku dhufan doonaa waan soo furi doonaa imika nadiif ayay noqotay run ahaantii kadibna xoogaa baan saasoo kale u yaraynayaa halkaas baan dhiganayaa laambadahaas hilaalkana xoogaa baan yaraynayaa bisha laambadaha mar kale waan koobiyeynayaa si loo koobiyeeyo waa taqaanaa halkan run ahaantii ayaan ku dhufan xaggan aan u socon doonaa casharo badan oo run ahaantii graphic design-kan soo baranay oo application-kan tutorial-kiisa hore aynu usoo dhiganay run ahaantii commentiga ugu horeeya haddii aad booqato casharadii hore dhammaantood waa heli kartaa insha allahu tacaala haddii aadna fahmi laadahay run ahaantii waxaa markasta muhiim ku ah inaad casharadii hore soo daawato sidaa awgeed waynu select garaynay kadibna halkan copy ayay nooga soo baxay waynu koobiyeynaynaa marka laynu koobiyeynaynaa laba goor baynu koobiyeynay kadibna halkaas waxoogaa baa kuwan yar gaabinayaa koornayaasha ayaan ka dhigayaa halkaastan waan yara gaabinayaa
koornahaas aan iyadana ka dhigayaa tanna xoogaa baan soo yara jiidayaa xoogaana inay ka yara weynaato okay si fiican ayay runtii hadda noqotay kadibna waxaan u sameynaynaa background madow oo runtii cirka u eg oo runtii macal xidigii ay ku yaalaan kadibna halkan calaamada wadartan ku dhufan doonaa insha Allah si aan background ugu soo daro kadibna shapeskan ku sii dhufan doonaa shapekaasaan qaadanayaa shapeka markaan qaato cad kadibna saasaan u weyneynayaa saasaan u jiidayaa u fiirso meesha gebigeedan leegaysiinayaa markaan meesha si fiican sizekeeda u leegaysiiyo walibana aan si yara weyneeyo okay sizekeeda meesha si fiican baan meesha u leegaysiiyey kadibna halkaasaan ku dhufanayaa u fiirso wuu select garaysan yahay kadibna hoos baan u jiidayaa hoos markaan u jiiday kadibna backgroundku wuxuu noqday maxay mid sidoo eg backgroundkii runtii wuxuu noqday mid cadaan ah sida awgeed colorka cad baynu select garayn doonaa backgroundkaas baynu select garayn doonaa hadda waynu taabanay waynu select garaynay gacanteenu ku jiideynaa bal meeshiisaan ku celiyo kadibna halkan shapeska waa inaan joogaa halkan shapeska waa inaan joogaa halkaas bartanka waa inaan joogaa kadibna waa inaan xaggaasaan u socon doonaa insha Allah bartan ay ku halkan ay ku qoran tahay texture ayaa ku dhufan doonaa backgroundka ayaan color u sameynayaa marka kadibna halkan ayaan ku dhufan doonaa kadibna galleryga ayuu geyn doonaa galleryga runtii waxaan kaga soo daray background baan kaga soo daray madow oo runtii xidiga ku sawiran yihiin kadibna waan tigarayn doonaa u fiirso kadibna okay baan siinayaa waad arkaysaa runtii backgroundkayga qaabka uu noqday iyo qaabka runtii aynu qurxinay waxaan rajeynayaa in kii marka hore aynu arkanay runtii aynu sameynay runtii waxyaabahani waxay u gaar tahay runtii islaamka islamic lamp ayaa loo yaqaanaa hilaalka iyo bishuna runtii inta badan waa astaanta muslimiinta waana runtii shayga aynu maanta ugu hambalyeynayno dhammaan muslimiinta xorashada bisha barakaysan ee Ramadaan haddii runtii xilli Ramadaan aad daawanayso waxaan ku leeyahay Ramadaan Kariim haddii kalena aad iyo aad baad u mahadsantahay tan intaynu ku kulmi doonaa casharkan oo kala la mid ah وبهد Islamic Technology. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.